wafdigan uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ahna gudoomiye ku-xigeenka dhanka maaliyadda maamulka gobolka Banaadir ayaa dalkan Koonfur Afrika u yimid socdaal shaqo oo la xiriira hanaanka shaqo ee suuqyada caalamka iyo sida looga faa'iideysto dhulka bannaan ee ku habboon in laga sameeyo ganacsiyo iyo fursadaha la xiriira. waxaa socdaalkan shaqo soo agaasimay hay'adda UN Habitat oo maamulka gobolka Banaadir kala shaqeysa dhinacyo badan oo la xiriira suuqyada dhulka bannaan ee dadweynaha ku nastaan goobaha lagu ciyaaro iyo waliba dhalinyarada dawladda hoose ee magaalooyinka Johannesburg iyo Durban ayaa martigeliyay wafdigan sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee gobolka Banaadir Ismaaciil Macallin Cabdi Guure. Rahmaan Rahiim imaatinkeena South Africa imaanay waxay ahayd ujeedadiisa inaan ka faa'iideysano khibradda ay leeyihiin South Africaanka gaar ahaan dhanka suuqyada waxaan ka soconaa dawladda hoose magaalada Muqdisho. dawladda hoose magaalada Muqdisho waxay bixisaa adeegyada ay bixisaa waxa kamid ah suuqyada magaalada Muqdisho ay ka shaqeyso marka si aan kuwa aan haysano wax ka khibrad badan dad naga khibrad badan aan ugu tagno yaa waxay noo dooreen hay'adda la yiraahdo UN Habitat oo nagala shaqeysta dhinacaas inaan u tagno booqasho dalka South Africa gaar ahaan labada magaalo ee Johannesburg iyo Durban. Ismaaciil Macallin Cabdi Guure wuxuu intaasi ku daray in xiriirka labada magaalo uu yahay mid bilow ah ayna rajeynayaan inay si xoojiyaan si wax badan ay uga faa'iideystaan labada dawladood ee Soomaaliya iyo South Africa. dabcan hadda xiriirka bilow waaye waxaan rajeynaynaa xiriirkeenaas inaan xoojino aan gaarsiino inaan kala faa'iideysano iyagu noo yimaadaan runtii markaan ka sheekeynayna magaalada Muqdisho kasto dagaal aan ka soo baxnay laakiin magaalada wax badan iska bedeleen wax badan oo iyaga ku cusub oo u sheegnay waxa laga yaabaa inay naga faa'iideysan karaan iyaguna waa dal weligiis dawlad soo ahaa inta badan muddo dheer naga khibrad badan wax badan ka faa'iideysan karnaa marka xiriirkaas waan bilownay. wafdigan ayaa la filayaa inay kulan la qaataan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka Johannesburg iyo Durban markay u soo dhamaato hawsha ay u yimaadeen dalkani Koonfur Afrika. Cabdullaahi Maxamuud Amiin Cabdullaahi Qorshe telefishinka qaranka Soomaaliya magaalada Johannesburg Koonfur Afrika.